Kurti wanaagsan daawadayaal waa dhuuxa wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo afka furtay si adagna kaga hadlay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daadgureynayso magaalada Garowe iyo sidoo kale magaalooyin ay kamid yihiin Gaalkacyo iyo Boosaaso oo dowladdu ay doonayso in ay saldhigyo ay ka sameeyaan ciidan ka soo horjeeda maamulkiisa haddaba warka culus ay ka soo yeeray madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo in ciidankaasi aysan ku sii sugnaan doonin deegaanadiisa xilli uu shaaca ka qaaday in maamulada ka jira dalka ay yihiin kuwa reer ah dalkuna aysan ka jirin dowlad la aqoonsan yahay haddaba muxuu Dani ula jeedaa dalka kama jirto dowlad la aqoonsan yahay barnaamijkeena ayaynu idinku soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijkeena waxaa ku daawan doontaan macluumaadkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo afka furtay sidoo kale tana si adag u weeraray mucaaradka ka soo horjeedo haddaba muxuu madaxweynaha dowladda federaalka uu ka yiri Ruusiga mucaaradku ay ka wadaan magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaynu idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan fashil ku yimaaday wadahadaladii u dhaxeeyay Mahad Salaad iyo Qorqor haddaba maxaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb barnaamijkeena ayaynu ku soo gudbin doonaa maanta saddexdan qodob ayaynu idin kula wadaagi doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal أنا قبل أنا وراك الناس لما كانوا جوهر يسينه حالة مجال الجروية حصاد هالكاسي كتاجن وكسي درسوا يمدحونها بنتلاند سعيد عبد الله الديني أو أبكر فرتي مدحون سعيد عبد الله الديني وهبين مدح عليها كار لما مجال الجروية أيها سيكون لك جه الله حصاد بنتلاند كتاجن يرغلغا قاعدا أو دولة فدرال كا الصومالي كودال كاسي مدحون الديني أيها وعد كومري إنه سنقبل دونين ورشة دولة فدرال كالصومالي يكون دونيسو إن يكون عرقل ذي أمني بنت waxa uu sheegay in aanay jirin wax la yiraahdo ciidan qaran oo qaybta koonfurada oo Puntland ka shaqeyn kara maadaama uu tilmaamay in dalka reer uu yahay oo aanay jirin dowlad heshiis lagu yahay hadalka Siciid Dani oo ay ka muuqato cara aad u xooggan ayaa waxa uu si kul ugu weeraray dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh ayuu ku tilmaamay shakhsi doonayo in uu u dhaqmo islamida markaasi dowladii dhexe iyada oo dalkana uu doonayo inuu ka dhigo nidaam dictatorial ah sidoo hadalka u dhigay haddaba madaxweyne Dani iyo hadalkiisa aad ku kulul waxaan rabaa inaan qaybta dambe idin kula wadaago ee uu si kulul ugu weeraray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin aan fiirino markaan gol Muqdisho ayaan eegi doonaa iyo madaxweynaha oo isaguna halkaasi ka jeediyay hadal kulul oo uu isaga bariyeelayo inuu yahay nin qori wato oo doonayo inuu dalka dumiyo laakiin magaalada Dhuusamareeb aan fiirino markaan halkaasi oo ay ka soconayaan wadahadalo u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Qorqor wadahadadan waxaa garwadeyn ka ah taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Maxamed Salaad haddaba maxaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug saacadihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay kulamo xasaasi ah waxaana ay dhaxmareen Maxamed Salaad oo agaasimaha NISA iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor wadahadadan ayaa lagu soo waramaya in qaarkood natiijo aan laga gaarin iyada oo lagu kala kacay madaxweyne Qorqor ayaa si adag ugu hor yimaaday in meesha uu ka tago iyada oo aanay ka dhicin doorasho heshiis lagu yahay oo markaasi daafuran taasoo u arko hadii uu iska tago si lamida lafta gareen in sumcadiisa siyaasadeed ay dhaawacmi karto sidoo kale tana ay foolxumo ku tahay deegaanka sida Qorqor filla Soomaaliya ayaana wajigabax kala kulantay qorshihii ay ku doonaysay in uu Qorqor si nabada uu kaga tago magaalada Dhuusamareeb iyada oo uusan wax dagaal ka dhicin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta lagu waday inuu ka tago magaalada Dhuusamareeb ayaana safarkiisu dib u dhac ku yimaaday geeska kale tana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo habeennimadii xalay ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag u weeraray xoogga mucaaradka madaxweynuhu waxa uu ka hadlay eedaha loo jeedinayay ku aadan inuu yahay siyaasi hubaysan oo doonaya inuu dalka dictatori ama nidaam kaligi talis ah uu ku qabsado si lamida Siyaad Barre waxa madaxweynuhu eedahaasi noqday mid iska bariyeela dhinaca kale waxa uu ka hadlay hubka mucaaradka iyo qorshaha ay dowladdu hubka uga dhigayso nidaamka xeerka doorashada ciladana ka jirto guddiga doorashada garsoorka ah ee dadka u dhaxeeya maxaa ciladana ka jirta waqtiga ciladana ka jirta maxaan ku iraahdaa amniga ciladana ka jirto laakiin aniga waan adduunyada aniga mar hore ka tagtay Soomaaliya hadday ka tagay hadda
ay ka tegayaan dii alla yiraa marka waxaan rabaa dalka jihada u dhaqaaqa waa jihadaas doorasho sideedaba eeday leedahay waxay aada u leedahayna waxay tahay waxay leedahay kuwa guulaysta iyo kuwa laga guulaysto kuwii laga guulaystayna dadaalkaynaa yaraay waa dadaal yarayne sanadka dambaan dadaalaynaa ma dhahaane intay ka dhacday xaggaa ka duleeshay iyo xaggay ka jeexneed iyo xaggaa laga laabay iyo xaggaa laga waxeeyey ayaa muxuu ahay jidka lala soo wada istaaga caadi waayo soomaaliya u gaar maaha marka waxaan leeyahay walaalaha siyaasadda danaynaayo ee heer kasta doorashada waa sidaas kuwa guulaysta iyo kuwa laga guulaystay leedahay kuwa laga guulaysto noqo dadaalkaaga la imaaw dardartaada la imaaw fikir lagugu doorto qurxoon la imaaw mustaqbalka ka hadal berri maxaa damacsan tahay oodan been ka sheegeyn oodan been ka sheegeyn dalkan iyo dadkan berri maxaa la jeceshahay maxaa la damacsan tahay sheeg oo dhabkaa ah xeeladaysi iyo maxaan ku ihahdaay cambaign iyo luuqmar aan kaa ahayn sheeg dadku ra'yigaas kuu doorto waa sheegnaa siyaasaddu suuqay leedahay suuqna badeecaa lasoo dhigtaa oo lagu kala gataa ninkii badeeca xun keensado laga gadan maayo ninkii badeeca fiican keensadana waa laga gadanaa suuqa badeecada la keensadaana waa ra'yi aragti soomaaliya noocaan ahaan rabaa berri inaan horseedo oon hogaamiyo oon ka mid noqdo oon wax ku darsado oon talo ku lahaado saanaa lagaa rabaa laakiin cari gara anaa og shalay basaan jooga shaanaa laga dhacay intaa laga booday xaggaa la waxeeyey yahuu aa dhacday maxaan ku ihahdaa hebelow waa xun yahay waa qalqalloocan yahay kaas waaye waxaasi wax macno le ma laha shalay waana dhaaftay wixii shalay naga khaldamay ma sixi karno waxaan samayn karnaa maanta inayna naga khaldamin beri inayna naga khaldamin laakiin shalay inta u noqonno wixii shalay ahay masoo sixi karno laakiin beri inayna naga khaldaminaan yeeli karnaa shalay waayo aragnimo iyo khibraday leedahay laakiin ninka shalay la nool shalayaa kan dhacday shalayaa kaas war shalay maalintaas maalinteeda shalay maanta ma aha duruufuhu isku mid maaha duruufihii shalay duruufaha maanta waa kala duwan yihiin duruufaha maanta iyo kuwa berina waa kala duwan yihiin u diyaar garow kuwa beri soo socdo ee quruxda badanna u diyaar garow sidii loo qurxi laha loo hagaaji lahaa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed yaanay ku kadsoomin kelmadaha oraahyada ee faaruqa ah oo waxba aanay ku jirin kelmadaha oraahyada xumaanta iyo colaada iyo maxaanku rahdaay yowmulqiyaamaha inuu dhacaya ka sheekeeyo waa la dumayaa waa la dhacayaa waa la kala tegayaa tuuladayaa la kala aadayaa jahanam ma jirto meel la kala aadaa male meel la kala tegaa male 36 sanaan duruufo gaar ku jirnay maanaan kala tegin waa isla joognaa waan isla sii joogaynaa nin xun hadduu hogaamiye yahay iyo hadduu mid ka hoose yahay asaa xun reer hebelaan xumayn degaan hebelaan xumayn cidaan xumayn dowladda federaalk ee soomaaliya baryahan waxaan maqlaa dowladdiio muxuu war xasan sheekh nin oo bulsho raydoba ahaa jiray maxay tahay hadda muxuu ahaay anugu qor ma qabo weligeyna ma yeelanin maleeshiyana ma yeelanin waxna ma yeelanin dadka meeshaan fadhiya in badan oo kamid oo saaxiibada ah oon soo wada noolay ay garanayaan maalintii doorasho la doortay bishii September 2012 baabuurka aan raacayo oo askari ilaala ah oo raaca maanta saa igu horeysay noloshayda intaan soo noolay gurigeygana weligay waardiye ma joogin baabuur aan magaaladan ku dhex wata magaaladan ku noolaaye dhex mari jireen weligay ilaala ima raacin ma ahayn dadka ku xaragooda qoryaha iyo hubka iyo qajajacda ma ahayn haddana weli ma ahi hala dhigo hubkan taagana
hubka hala dhigo waa taagana mas-uulaan ahay 5 jeer ayaa cadowga khawaarijtu inay idilaan ay isku dayaan oo la wada og yahay magaalada muqdisho iyo banaankeeda intaba ومع ذلك maanta waxaan joogaa baabuur ciidan oo qoryo ka raaracaan inaanu daba kicin oo ilaalin mugaan magaalada xamar joogo laana uma baahni looma baahna dadka baabuurka iyo hubka iyo qoryaha ay xaragada ka noqotay ee ku xaragoonayo ee haddaanu askariga qoryo shalab xabada siinaya aanu daba soconin u arka in aan dadku inaanay u jeedin u arko or markaad fiicantaa lagu arkaaye markaad balaayo tahay laguma arko indhaha dadkana dadka hoggaanka u ah ayay fiirsadaan waa soo marnay magaaladan oo niman hogaamiye kooxeedyaha oo magaalada mugay marayaan magaalada dhan ay gariirayso baabuur midku ka weyn yahay midku ka qoryo weyn yahay qababababac magaalada la yiraahdo ammaanna laguma helaynin maanta oo aan dhaana waa dhigaynaa qoryaha dhiga baabuurta dhiga ammaanaan haysanaa kii hore ka fiican aragga qoriga ujeedistiisa waa amni darra ogaada laakiin marka la micnaynayo dowladnimada casriga maxaa la yihaha dowlad state waa isticmaalka hubka sharciyeysan ama waa isticmaalka awood sheegasho sharciyeysan awood sheegasho sharciyeysana dowlad basaale qof ma laha ma yeelan karo war ra'yigaaga soo cabir banaanka imaaw mudaaharaadkaa lagu ogol yahay banaanbaxaa lagu ogol yahay mas-uuliyad qaado muqarib wax qariba ha noqonin propertiga dadka ammaanka deganaanshiyaha ha qaribin laakiin qoryaan soo qaadanaa qababababababa ayaan dhaweeto nimanaan saaxiibbaa waxay ku doodaan mudaaharaadaan sameynayna waa naloo diiday qarniga 21aad oo meel kasta ahay muxuu ahay ay daroon miidiyaha uu leeyahay ay sawirayso wax qarsoomi kara ma jiraan 10 wiiloo dhalinyaro ah musawirka xasan sheekh oo qalqalloocan inta loo soo dhiibo qoryadaba minshaaraana lagu ilaaliyo war musawirka xasan sheekh oo qalqalloocan darbigaas ku dhegsaa daartid xataa qof ka fujinaysa ma leh laakiin qoradaba minshaara la soo daba kicin ha ku ilaalin wiilasha musawirkaas qalqalloocan watay iyo kuwa qoryaha wato ilaalinaya kuwa qoryaha wato ilaalinaya badnaay tira ahaan waa sawiran yihiin ma ka been sheegaya waa la arki karaa maanku ha shaqeeyo caqligu ha shaqeeyo dhaqanka suuban ha shaqeeyo dowladnimada waa muqadas ha la ilaaliyo lianna waa noloshii dadka waay mid tabar yar mid baahan mid hanti leh mid baahiyo gaara qabo intaba waa soo marnay qax kala orod kala muxuu magaciisi dowladdu amni darro ma sababayso amniyay sababee amni darraha sababin adiga muwaadinkow dowladdu jidadkii magaaladan xirxirnaay ee intaasoo sano soo xirnaayay furtay ha xirxirin jidadka ha xirin hadda jidadkii la furay oo muxuu ahay intaasoo sano xirnaay maanta in qof inta yimaado midna baabuur dhagaxa ku dejiyo midna baabuur caraa ku dejiyo midna maxaan ku ihahdaa haskows oo isku rakibo macquul maaha waa ku dheeraaday aada iyo aad ayaan mar kale iyo mar kale aan u hambaliyeynayaa hogaamiye sheekh aadan maxamed nuur waxaan sidoo kale hambaliyeynayaa mar kale iyo mar kale shacabka koonfur galbeed ee sida deganaanshiyaha iyo ammaanka iyo maxaan ku ihahdaa discibliinka leh inta u galo doorashadii kasoo baxday xamar doorashadii ka dhacday waxaa la yidhaha askariya booliis ah nin arbaax 13 degmo ee koonfur galbeed doorashadu ka dhacday askarina qof ma dharbaaxin xataa marka ilaahay idankiis kuwa dambana waa sii qurxoonaan doonaan doorashooyinka teeramyada dambe imaanayana midaan waa kasii qurxoonaan doonaan laakiin haddaynaan bilaabin wiil inta dhasho ma dhaamiyo
wiil inta dhasho inuu dhaamiyo fitraa u dhexaysa war wiilkii hadduu dhashay aan fursad siino inuu gaaro cimrigiisa iyo xooggiisa awoodiisa meeshuu ku dhaamin lahaa oo reerka biyo u keeni lahaa dimuqraadiyaddii hadday bilaabatay aan gaarno meesha dimuqraadiyadda ugu fiican afrika inaan lahaan karno waana soo lahaan inaan lahaan karnaan aaminsannahay ilaahay haddana waa leenahay aan aamino aan ku dhaqanno waa habnololeed dadkeennu dhaqan ahaan ay u leeyihiin aan socodsiino aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah